السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن مالك استوجوكتان إيميل والبوديقة داوان إكسانبا بعد الريدق مكابا سلام قالي هودا دين صومرنيا وقت والبودين تا ونكسن وعن انتا كدب كسو دوادا جدول كينا مانتاي أما قلبتاي حلق وحلق قلبا شقada markaan qabanayo guriga dhaqankaaba maanta ku soo dhawaada markii ugu horeysay markaa ku soo dhawaada sida u jeedaan laba caag bay sitaa runtii yaraantii baan soo xasuustay wixii tuulo ku soo koray biyo dooni jiray ceelasha ama maxay tahay matoorada biyo ka dooni jiray marka baagi baan biyo ka doonaya reerkii baan ku soo leexday cabaar baan nabdaystay kadibna waan ka soo tagay waxaan u socdaa baagi ama baraagtii biyaha laga doonayo aniga caagadahaas ku gargaraacaniya markaan yaraa waa runtii soo xasuustay laba caag oo inta naloo dhiibaan biyo dooni jirnay waliba anigu meel tuula ayaan ku soo koray baadina waan deganayn tuulana waan deganayn ayidii baa deganayd ay kuris baan ahay ilaahay u naxariisto maanta labadiba way iga dhinteen ayiyo hooyo marka matoor baan biyo ka dooni jirnay ama ceel biyo saa u taqaanaan sida u jeedaan waa ka baagi baa nimid baraag iyo baag way kala duwan yihiin meesha baag baa ku aasan ama de kulli waa wax adigu meel lagu aasay anigu baag baan u garanayaa marka barkadna way jirtaa ama baraag saa u taqaan laakiin kan waa baag la aasay ama ciidda marka lagu inta god looqada lagu riday marka halkaas ceelkii ka shubayaa ama baagi laba caag yaryar baan iska soo qaato biyaha ku soo doonay naagteeda dhan ee weyn marka biyaha horta xaafadii soke hadda aan soo dhaafayay fuusta ay halkan ka soo doontaan ka dhaansadaan oo dameer baa lagu dhaamiyaa marka fuusta lagu shubana xaafada kale ayaa ayagana dhowr jirgaan lagu shubaa marka biyo way ka dhamaadeen wiilashiina way maqan yihiin naysha yarta waa wanka yarka ayaa yimid wiila socday wuuna raaci doonaa marka biyo baan leeyahay biyo u baahan tahay uu diiday biyo muusa baran wili caanaha hooyadiis buu cabaa marka shaqadayna waxay ku bilaabanaysaa biyo dhaamiskan bay ku bilaabanaysaa intii biyo soo dhaami jirtana waxaan ku halkan baan ka salaamayaa waqtigu waa waqtiga jidaalka dhirtu qalashay ama xagaa saa u taqaanid diraaci xagaa buu jidaalku kala leeyahay waxaan ilaahay ka baryanaa roob khayr qaba biyo waa soo dhaamiyay baraagta waa la oodaa ama baag barkad bay iga dhigtay dadka qaar baa barkad u gara og laakiin waa de baag weeye halkan baagi baa la leeyahay barkaduna waa goonideeda marka maasha Allah waan soo dhamaystay biyihii ama waan soo qaaday biyihii waxaan ku reerkii waan soo aaday labada caag oo biyaha baa waxaan doonayaa inaan caawa cashada ku kariyo oo waxaan ku maasha Allah aan hawsha dhan ku wada qabto gabdho badan waxa laga yaabaa biyo u bartay tubada u bartay aniga laftay waan kamid ah dadkii tubooyinka biyaha u bartay laba saddex laama labada afar qaad markii loo dhiibo liiraada reer dhan casho ugu kariya ma wax ku qabo wallahi waad ku wareereysaa laakiin dhaqaalaad ku baranaysaa oo waxa weeye dhaqaalaha aad baa cajiib yahay biyo waan dhigtay xaabo ama qoryo ayaan doonayaa xaabada dadka qaar baa qoryaha xaabo u garanaya meesha hadda anigu aan joogo xaabo waxa laga yiraahdaa qoryuhu markay yaryar yihiin de wax yarka dabka lagu huriyo ama lagu shido ayaa xaabo la yiraahdaa qoryaha weyn qoryaha la yiraahdaa dadka qaarna waxa dhan guud ahaan xaabo ay u wada garanayaan dadka qaar jaaba ayay dhahaan lahjada lagu kala duwan yahay halka sagaara ku hooyatay waxa weeye diga sagaara ama saaladii sagaarada way qofkan arkin marka xaabadeena ayaan halka ka guranaynaa barkintiis baati xariiran la winaayo deeqleegoy luqun dherde la winaayo deeqleegoy luqun dherde la winaayo shanshadeeda shanhalaala la winaayo sabarkeeda sadan jooga la winaayo luqunteeda lixalaada la winaayo qosalkeeda qalma jooga la winaayo sameede la winaayo waqti geeyaleede la winaayo waqti geera bandeede la winaayo waqti gaarileede la winaayo markaba maalka la taagan la winaayo kun rimarba shaqayda
xalaada sabarkeeda soddon jooga shanshadeeda u yaroo 5 halaad joogta suurowgan horta ama hibilowgan suurowman hibilowgan waa ciyaar kamid ah ama waxa weeye waxyaabaha dhaqanka kamid ah ee gobolka Galgaduud maxay tahay gabdha laga qaado xilliga aroosyada dadka qaar waxay ku dhaheen sabar maxaa laga wadaa yacni dhexdeeda gabadha dhexdeeda kaliya 30 halaad joogta way wacnaa lahayd ama way fiicnaa lahayd runtii in gabdhaha sidaas xibin waxaan kurgeel loogu dhufto ma fahanteen laakiin de ragga qaar baa hadda joogo qaarkood waxay dhigayaan waan soo iibsano xibin walba intaas bay iga gadan tahay intaas waa kaftan dabkii baan hadda shidanaynaa qorii waan soo guranay ama xaabadii ama jaabadii sidaad u garanaysay biyihii waan soo dhaansanay maasha allah waxaan kuri gabar ka tagtay haddana waxaan kuri cashadii baa la karinayaa dabkii baa la hurinayaa ama la shidayaa hurin waxaa la yidhahdaa marka dabku uu daciif yahay dee dab ka soo saartid maasha allah waa anaga xaabadii aan keysana ama qorii aan keysana dabkii ku shidanayna cashadii baa la saarayaa cashaduna caaway waad isla arki doonaa casho saa u badan ma kari doono maadaama waqtigu iska yaryahay ayaan karsan doonaa soo dhawaada markaa cashada inkastoo hilibkaad isku fiicantiin waan ogahay dad badan haddaan dhihi lahaa hilibku soo dhawaada aad bay usoo dhawaalaan si fiican bay usoo dhawaalahaan laakiin hadda hilib maanta nooma karsana mana haysano meeshaana ariga la iskama qalqasho dee berigii horaa reer miyigu hilibka balibal uu ka ahaa laakiin xoolihii halkan waxayba noqdeen sida dadkii oo kale xilliga jiidaalka waaba la biilaa qarash badan baa la geliyaa markaa halkaa digsiga dhagoole ayaa loo yaqaanaa China ma soo saarin nin baa gacantiisa kusoo sameeyey Soomaaliya lagu soo saaraa maasha allah waa dhagoole la tumay booska wuxuu ku jiraa dugsiyin badan oo ku arkay magaalada markaa wax umateeya ama dee markii wax la boobsiinayo kale ama hilibka lagu karsado waxyaabaha boobsiiska oo la rabo in umataadka ay dhaqsi ku sameeyo ayuu booskiisa ku jiraa gabdho badan markaa magaalada joogan waxaan leeyahay digsiga iibsada wallahi aad buu wanaagsan yahay lacagtiisana waxa weeye sidaa uma badna adigu midka u qaalisan $20 baa la siiyaa meelahan gobolada aan ku arkay laakiin wax badan buu olayaa dee wax badan waan kasoo tagnay dabkii waxaan xaaqinaa daaradii ama ardaag buu noqonayaa markii aan miyiga joogno markaa ardaygii baan xaaqinaa si markaa halkaa meesha caawa la seexo lahaa runtii ardaageena aad buu u weyn yahay oo aqalku waa dhex ka dhis haddaa arki jirteen filo dhex dhis haddaa arki jirteen aqalkeenu waa dhex dhis markaa marba in baa la xaaqaa waxaan ku ridaa hal mar islaantu kamay baxaysee asxaabta qaar waxay ugu dhaheen horta islaanta maxaa isku tirahdaa islaanta muslim baan ahay soo maaha markaa islaanta wallahi afkaygaas ka qabsaday islaam waan ahay dhammaanteen islaana waan ahay markaa aad baad mahadsantiin walaalaha qaaliga mar walba waxaad ila jeceshiin wanaaga markaa qashinkii halkaas baan geynay macaa jawaankii halkaan iskaga soo daray jawaan dhammaaday xasigeeni ama gogasheeni ama dirinteeni berigi hore raro ama falko ayaa maxay tahay ayaa la gogla jiray laakiin hadda dirimahaas ayaa la goglanayaa markaa qaybtaasaan xaaqanay halkaas waxaan loo diyaariyey xaafadda kaligay ma ihi guriga dhaqankaaba haddaan eri kaligay ma joogo waa la badan yahay rag bayna u badan yahay waxay la jooga wiilal aan waaladu ahay eedii habar u ahay ayaa jooga markaa cashadana waa taawa digirtaas ayaa la karinayaa habeenkii digirtaas baa la iska karsadaa waayo arigu iska caaneeray inta badan xilliga roobka reemiyigu waxay cunaan bariiska cad bay cunaan oo caana lagu darsanayaa ciirtii ama garoorkii ayu nooc laakiin marka sidaan kale jidaal noqoto xooluhu caana yareeyaan waxyaabaha badan baa la iska karsadaa adii xitaa suugooyinkii magaalada la karsadaa gurigii baan soo galay gurigii baan kala aruurinayaa asxaab badan waxay ugu dhaheen guriga miyaan lacag dhigayn horta gobolkan aan joogo Galgaduud baa la yiraahdaa ciid wuxuu leeyahay ciidiisu way kala duwan tahay hadda anigu meesha aan ka joogo ciideeda wasaq ma lahan boor ma lahan waxba ma lahan waa ciid nadiifa maanta dhan dad gacmaha iyo lugaha meel walba haddaad saa u daadinaysid meelna kaama soo raacayso marka waxaa laga yaabaa dadkay dhahaya cagdhiga garanaya dee inay yaqaanaan ciid dhas ah ama boor ah ciidan waad aragtee marar badan xitaa cuntada lagu sameynayo waa ciid jawlo ah ama quruurux ah oo nadiif ah oo maanta dhan dee wax walba hada weelasha u jeedaan wax ciid gaduudan ama wax boor ka muuqda marnaba ma arkaysaan marka guriga waan soo kala aruursanay alaabtii baan u nimid marka asxaabta inta badan isku deegaan ma nihin isku maxay tahay isku ciidna ma nihin oo ciid way kala duwan tahay meelaha qaar baa ciid boor ah oo dhas ah meelaha qaar baa ciideeda nadiif tahay ciidda sidaan kale anigu waxaan ku arkay Muqdisho kale matalan ayaan meelaha qaar bacaadka ah dabcan intii ree'ood weynaa
halkan baa ka salaamaya hadday daawanayaan ciidaasoo kale leeyahay yani waa ciid nadiif ah oo maanta ilmuhu hadduu saa u galo oo kasii baxo saa u galo waxbana aan kasoo raacin marka asxaabta waxaan leeyahay aqalka cagdhig igu dhaheen aqalka cagdhig uma baahna gobolkana maba laga cagdhigto dawaciida nadiifka marka uu 6 bilood ama adigu muddo uu ku dhisnaadana aqalka waa laga bedelaa yani ciidu dadku ay socodkii ku bato marka alaabtiina halkaas ayaa lagu warwarayaa hadda arki jirteen dhar la warwarayna de alaabtii waa taa la warwarayo shaqadu maanta halka ay noo maraysaa waxaan ku rajay jawi aad u qurux badan roobkii oo kaliya naga maqan insha Allah isaguna wuu imaanayaa runtii rootinkii miyigana waa ka de rootinkii magaalada daawataa mar walba soo maaha kamiyigana waxa weeye daawada oo soo dhaweeya waxaan ku gabadha miyiga ka soo warantaa oo waxaan ku rootinkeedii aqalkeedii iyo nidaamkeedii in la wadaagisaan ahayo maxay tahay soo dhaweeya anigana asxaabta qaar ba waxay ugu dhaheen mar walba magaaladii baadiya maxaa isku barbar dhigtaa horta nolosha dhan baa isbarbar dhig ah uma tilmaanta markii wax la sheegayo de lab iyo dhadig markii la leeyahay rag iyo dumarka ayaa mar walba la isbarbar dhigaa dumarka sida ragga sida adduunka wax walba iska soo horjeeda waa la isbarbar dhigaya marka miyiga iyo magaaladu waa laba iska soo horjeeda meel walba ay nolol ka jirto xumaana marka ma ahan hadaan dhaho miyiga sida ama magaalada sida hadaan dhaho yacni waxa ay ku kala duwan yihiin ayaan ka hadlayaa ma ahane de magaaladu waa midan ka imid anigu miyiga waan ku dhashay ku barbaaray laakiin magaalada ayaan ka imid marka halkan maqribkii ma noqotay maqribkii waan soo tukaday ilaahay salaada iga aqbalo dhamaanta ilaahay naga aqbalo halkan waxaan ku xirnaa korontadeeni asxaab badan baa la yaaba oo igu dhaana xageeba koronto ka heshaa badankiin waa la socotaan dhowr mar baan u sheegay laakiin soolarkii aad arkaysan haday aqalka gadaashiisa aan ka qaadiyay ayaa maxay tahay qoraxda ku soo jiidanaa sidoo kale baterigaas maalinka dhan baa la dabaynayaa habeenkiina waa ifsanaynaa sida u jeedaan labadaas fiilo maynisi balaasay kala leeyihiin marka labadaas fiilo u jeedaan ee guluubka ku xiran ayaa lagu kala xiraya Soomaali hadaan nahay anagu wax walba waan heli karnaa in kasto de uu noo soo sameeyay wadan kale hadana sidaas oo tahay waxaan isku aadaysanay maxay tahay aan helnay maanta aan sameeysanay labada fiilo ayaa midba meel lagu xiriyaa midba meeshiisa kadibna layrkeena halkaas ayaan habeenkii ku ifsanaa nolosha sida aad ka dhigato ayaad baadiyaha ama miyiga aad ku noolaanaysaa oo waayo wax walba waad geensan kartaa adigoo miyigii tagay oo baadiyi u baxay ayaa wixii magaalada yaalay oo dhanna soo rarar kartaa de layrkii waa ka layrkii wad helisan internetka laga yaabo deegaamada qaar in uu maxay tahay laga heli karin waxaan ilaahay ugu mahadinayaa deegaanka maanta aan joogo inaan internetkii ka helay oo waxa weeye taasuna ay tahay nimcad aad cajiib u ah oo iduna maxay tahay mudan de in mar walba ilaahay lagu shukriyo waayo deegaamo badan ayaa internetku gaarin oo xitaa qaarkood telefoonka caadiga ciriir ku yahay deegaamadaasna waxaan leeyahay shirkadaha meel walba taga waayo shirkadaha wadankeena ay laftigooda in loo mahad celiyo ay mudan yihiin ayaguna way mahadsan yihiin marka deegaan kasta waxaan leeyahay taga oo dadka baahiyooda agabtira marka jadwalkeena waa ka waqtiga waqti maqribkiya cashadii waan karsaday dabka ii saaran tahay yani dabka wali saaran tahay alaabtii baan dhaqday biyihii baan keenay xaabadii baan keenay waa nolosha miyiga ka jirta iyo shaqada la qabanayo yani sidaan kula wadaagay waayo de marka YouTube-ka la daawanayo gabdhaha inta badan gabar walba waxay qabataa ay dadka la wadaagtaa anuna shaqadii halka ka jirtay xilligu xilli habeena laambadii halka iga shidan cashadii baan gurayaa wiilashii marka habarta aanu ahaa ayaan cashadii u gurayaa masha Allah aad baad mahadsantahay intaas oo dhan muuqaalka dad ila soo daawateen like saaraha hilmaamin sonkor baan ugu diray sonkorta halkan wallahi zaaid waxa laga yaabaa sonkorta intaas aan ku daro haddana in mid kale ku sii daraan marka wiilasheedina waa kuwaana halkan ay joogaan cashadii ma u geeyay qeyr badan baan ii rajeynayaa muuqaalka sana like ayaan laga iloobin